السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. marka ugu horeysa waxaan dhammaan salaan kali laaba ugu gudbinayaa dhammaan xubnaha xisbiga mas'uuliyiinta xisbiga intaas kadib waxaan rabaa in aan ku wargeliyo dhammaan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga sanaanta amaanka iyo midnimo ololeynta samo in ay ka soo qayb galaan kulanka dhici doona maalinta Khamiista ah oo ay bishu tahay 22 bisha Janaad 2020. kulankaas waxaa looga wada hadli doonaa arrimo khuseeya doorashada xubintii uu baneeyay xogayihii hore marxuum Shaahid Aadan Qeyrdoon taasoo gali doonta nidaam doorasho. sidaa daraadeed waxaa dhammaan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga la ogeysiinayaa ama lagu wargelinayaa in ay ka soo qayb galaan kulankaas. cid alla cidii danaynaysana si ay u soo gudbiso loola socodsiiyo cidii danaynaysa inay xilkaas qabatana loola socodsiiyo shuruudihii iyo qaabkii ay lahayd. inta kalena si ay u helaan macluumaad ku saabsan doorashada si loo fududeeyo nidaamka iyo qaabka ay u dhacayso doorashadaas. waxay bilaabtay arji qabashadii cidda xubintaas u tartamaysa 16 bisha Janaad 2020 waxayna ku eg tahay 16 bisha Lixaad 2020. sidaas daraadeed waxaa dhammaan xubnaha golaha dhexe ee ku sugan magaalada Muqdisho laga codsanayaa in ay ka soo qayb galaan kulankaas maalinta Khamiista oo ay bishu tahay 22 bisha Janaad 2020 si loogu faahfaahiyo ama ay u helaan nidaamkii ay u buuxiyaan nidaamkii iyo qaabkii uu soo saaray guddiga farsamada ee ku meel gaarka ah ee xisbiga si shuruudahaas iyo qaababka ay u baahan tahay doorashada iyo cidda ka qayb galaysa iyo cidda loo ogol yahay si loogu faahfaahiyo si ay ugu soo diyaar garoobaan inay ka soo qayb galaan doorashadaas. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.